ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، waxaan halkan uga tacsiyadaynaynaa dhammaan annagoo ah ilmo gobdoon Yuusuf Axmed oo ku kala sugan adduunka daafihiisa. waxaan halkan uga tacsiyadaynaynaa dhammaan walaalahayo reer Yuusuf Faarax oo ay ku geeriyootay hooyadood magaalada London asbuucan gudihiisa, isla markaasna lagu aasay magaaladaasi London. waxaan ilaahay subxaanahu watacaala uga rajaynaynaa jannatul firdaws al-a'la inuu geeyo maamadayna, iyagana ilaahay subxaanahu watacaala uu samri iimaanba ka siiyo. dhammaanna dadka walaalaha ah oo maamadu ay u ahayd eedo iyo habaryar iyo ayeeye iyo hooyo iyo faamil, waxaan iyagana leenahay ilaahay subxaanahu watacaala samri iimaan idinka siiyo. waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala naf kastaba maalin ayuu oofsanayaa, maalin ayay naf kastaba waxa weye adduunkan ka tegaysaa. hooyo Sahra Xaaji Saleebaan aadanna ilaahay subxaanahu watacaala maalinteeda ayuu ka dhigay, maalintaas inaysan dhaafin. ilaahay subxaanahu watacaala jannatul firdaws al-a'la hageeya ayaan leeyahay. waxaa halkaan uga tacsiidaynaya waxaan ku tacsiidaynaynaa dhammaan annagoo ah oo noogu weyn yahay walaalkay Cabdirasaaq Gobdoon Yuusuf, Farxiyo Gobdoon Yuusuf, Sahra Gobdoon Yuusuf, Cabdirasaaq Gobdoon Yuusuf, Cabdifataax Gobdoon Yuusuf, Cabdiraxmaan Gobdoon Yuusuf, Cabdinaasir Gobdoon Yuusuf, iyo Sahro Gobdoon Yuusuf, iyo anigoo ah Shamsudiin Gobdoon Yuusuf. dhammaantay waxaanu u tacsiidaynaynaa walaalahayo ilmo Faarax, ilmo Yuusuf Faarax oo hooyadood Sahra Xaaji Saleebaan ay ku geeriyootay dalkaas Ingiriiska. waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala samri iimaan ba idinka siiyo, kulligeena ina ka wada dhimatay. inna Allah subxaanahu watacaala laa yu'akhiru binafsin ajalaha, kullu nafsin dhaa'iqatul mawt wa innamaa tuwaffawna ujurakum yawma alqiyaama. qof kasta oo ina kamid ah uu ka tegaya adduunkan, qof kasta oo ina kamid ah Allah subxaanahu watacaala waxa weeye nabiyullaahi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi uu ugu jeclaa dadka adduunkan nabi uu ka tegey wuuna dhintay. inagoo dhanna waxa weeye ninba qofba maalin buu leeyahy. marka Allah subxaanahu watacaala inaynu u barino dembi dhaaf iyo inuu jannadii geeyo maahe wax kale inaynu niraahno maaha. waxa weeye maanta duca ayaynu ka baahantahay hooyadeen Sahra Xaaji. adduunkan way ka tagtay, intii calaf alla uga qorayna way ka qaadatay. waxaana khaas aan ula hadlayaa caruurtay ka tagtay iyo faamilkay ka tagtay in qofku intuu adduunka joogo isagu isku filan yahay, laakiin markuu idiin baahan yahay waalidku uu yahay uu idinka baahi badan yahay adduunka, baahida waxa weeye tan aakhiro. oo markuu dhinto waalidku inaan qabriga lagu ilaawin, markastaba waxa weeye la xasuusnaado, loo duceeyo, loo xajiyo, loo cumreeyo, sadaqad loo bixiyo, qabriga lagu booqdo. waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ayaa waxa weeye ajarkeeda idinka siinaya, oo waa taas oo iga talo inaan hooyo qabriga lagu ilaawin. idinkuna waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala idinka samarsiiyo, annagana Allah naga samarsiiyo. sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.